الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام waxaan idinla wadaagi doonaa anagoo ah dalada ay ku bidaysan yihiin gabdhaha daaciyaadka ah ee ka qalin badashtay macadka Ummul Qura barnaamijkeena imtixaanaha ahay kuuni daaciyatan lil khayr xalaqadiisii saddexaad oo ugu hadli doono baraha bulshada faa'iidada uu leeyahay iyo qasaarada uu leeyahay bulshadeena haddii aan ka bilaabo faa'iidooyinka uu leeyahay anagoo ku hormareyno awalan faa'iidada uu leeyahay mujtamaca islaamka waxa kamid ah inuu qofka islaamka ah uu ku gudan karo wadiifada oo ummadda islaamka ah loo xil saaray muhammadiya hadii aan nahay oo ah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar inuu qofka wanaagana ku fari karo xumahana dadka uga reebi karo kalabaad waxa waaye in uu ka dhigayo caalamka oo dhan hal qariyo ee ku wada xiriiri karaan dadiyooga caalamka oo dhan waxa kale kamid ah in uu sahlayo qof walba inuu macluumo uu doonayo si fudud uga helo baraha bulshada haduu ganacsiga yahay qofkana uu sahlayo inuu ganacsigiisa caalamka ku baahiyo asagoo u marayo dariiqada internetka haduu arday yahayna uu sahlayso inuu waxbarashadiisa kaga qaato soo isticmaala internetka halkaas hadaan ugu gudubno faa'iidooyinka uu leeyahay inkastoo aan la soo koobi karin waxa gudagaleena dhibaatooyinka uu leeyahay anagoo si niqaash ah uga hadli doono waxaan igala qayb gali doono saddexdeeda walaalo khasaarihiisa waxa kamid ah marka ugu horeyso qofka bini aadanka inuu waqtiga ku lumiyo waqti fara badan oo uga baxo tan labaad oo ah inuu caafimaadkiisa ku waayo sidoo kale waxa kamid ah in uu qofka sharaftiisa ku waayo ama uu ku soo bandhigo wax been ah sida uu helo views ama falcelin iyo inuu ku faafiyo xumaanta waxa kale oo kamid ah khasaaraha uu leeyahay baraha bulshada inuu sababo burbur qoys waxa gudagali doonaa niqaashkeeni ku aadanaa qasaaraha uu leeyahay baraha bulshada hadaan ku hormarno su'aasha koowaad waxaan weydiin doonaa hani sidee loogu lumiyaa baraha bulshada waqtiga looguna mashquulaa cibaadada qofka waqtigiisa wuxuu ku lumiyaa baraha bulshada asigoona dareensaneen waqtigaas inuu ku socdo wuxuu qaadanayaa saacad fara badan asigoo macnaha dareensaneen saameynta ay ku yeelanayso ama faa'iidada ugu tagi karta saacadkaas oo waqtiga uu ku luminayo baraha bulshada sidoo kale waxa laga yaabaa inuu qofka yahay qof dul jooga maanta 12ka fiirsanayo fiidiyoyaal aan macno lahayn ama inuu aqrinayo mawaadiic aan muhiimad gooni ah u lahayn asiga sidoo kale qofka wuxuu ka qaadayaa caajis aad u fara badan caajiskaasna laga yaabo jirka bini aadamka wuxuu ku shaqeynayo waa nashaad inuu sameeyo inuu firfircooni sameeyo taas oo sababi karta inuu cudurro fara badan oo qofka bini aadamka u imaado kadalika qofka hadii uu yahay qof saas mudmin u ah baraha bulshada wuxuu dayacayaa la shaka waxa inuu cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala ka tagay ama salaadaha mid ugu weyn ah waqtigeeda hal lumiyo oo hadayaco ama si toos ah ha u dhaafto oo yuusan soo xasuusanin qasaaraha uu leeyahay baraha bulshada waxa kamid ah in uu qofku ku waayo sharaftiisa sidee buu sharaftiisa ku weyn karaa been loogu faafi karaa baraha bulshada su'aasha waxa weydiinayaa Aisha haddii aan ka jawaabo su'aashii la weydiiyay oo ahayd sidee qofka sharaftiisa ugu weyn karaa isticmaalka baraha bulshada ama loogu faafin karaa been iyo xumaan waxa xumaan loogu faafin karaa qofka inuu soo bandhigo fiidiyooyo oo munkar ah oo lis amray in liska reebo saasay tahay dhalinta ku sii wada tartamaan in qof walba fiidiyoogaas fiidiyo ka fiican uu keeno halkoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dhahay ulaaika yusaaricuuna fil khayraat wa hum laha saabiquun waa kuwa khayrka u degdego una tartamayo hadda marka waxay noqotay aayad in cagsi laga dhigo oo xumaantii lagu tartamo oo loo degdego dhankeeda oo lagu kala hormaro waxa kale oo qofka sharaftiisa uu ku weyn karaa gabdhaha qaasatan inay soo bandhigaan fiidiyo aysan asturnayn wayna ku sii kala tartamaan wayna ku sii kala hormaraan sida inta badan ba hadda ka socoto TikTok-ga waxa kale oo qofka uu been ugu soo faafin karaa in qof ciwaankiisa la isticmaalo oo laga soo dhigo qof kale lagu soo waxyeeleena ciwaankii been waaye si hadhooti labadaas qof oo labadoodaba oo waxba aan kala ogeyn qoorta la isugu geliyo waxa inoo sii socda su'aalaheeni oo salbiyaadka ahay waxaan u sii gudbi doonaa su'aasha saddexaad oo aan weydiin doono Maryama
sidee buu burbur qoys u sababi karaa isticmaalka baraha bulshada? waxa uu u sababi karaa burbur qoys oo haddaan ku bilowno dhinaca lamaanaha koo markay noloshooda bilaabanayaan xafladda arooskooda ka bilaabanayso inay ku soo bandhigaan baraha bulshada gabadhii oo qaawan oo xubnaheeda qaar ay asturnayn ninkii oo asan gacanta qabsanayo waxyaabahaas ay ka dhacayaan waxyaabahan loogu talagelin inay ku soo bandhigaan baraha bulshada ee diinta islaamkan cagsi ku ah ama lid ku ah koo markii ka bilaabanayso marka arooskooda ummad baa sawirro ka qaadanaysa ayagii oo qaqaaban waxyaabo qaab daran sameynaya waxay soo bandhigayaan dadkii oo asxaabtooda eheladooda ayaa hadhow waxay qaadanayaan sawiradoodii labadii qof ama kuwa arooskooda ahaadaan kuwa kala ahaadaan kadib waxaa lagu soo bandhigayaa bari bulshada iyadoo loo hambaliyeynayo labadan qof markay aqalgalaan kadib waxaa bilaabanaysa in ay dib u fiiriyaan dadkii soo hambaliyeeyay ama usoo tahniyay arooskooda kadib waxay fiirinayaan boostiyaashii la soo dhigay oo dhan ay dib u fiirinayaan ayagoo eegaya dadkii u falceliyeen inta like siisay inta comment siisay inta share gareysay inta u tahniyeysay halkaas waxa ka bilaabanaya koow marka in labadan qof ay ku bilaabato inuu yahay internetka inuu ku noqdo caqabad soo kala dhaxgalaysa labada qof meeshii la rabay inay waqti isla qaataan hadhow marka waxa imaanayso labadan qof inay kala jeedsadaan midba mid kale uu ku mashquulo internetka ama telefoonkiisa waxa imaanaysa halkaas ka dhalanayso inay ducf ku yimaado calaaqadii ka dhaxaysa labada qof oo la rabay inay isku soo dhawaadaan markeedii hore ducfigaas wuxuu sababi karaa kala shaki iyo kalsooni darro ka imaanaysa labada qof maadaama mid walba intaysan isguursanin ka hor qof kasta uu calaaqo qof kale la lahaa ama duusan la lahayn xataa qofkan kale uu kaga shakinayo uu isleeyahay ninkii uu isleeyahay gabadhan ama qof kale shukaansanaysa ama qof kale ama kugu khiyaanaysa gabadhiina isleedahay ama ninkan ama gabar kale saas waxa imaanaysa kalsooni darro hadhowna ay sababayso burbur qoys in lagu kala tagaa gurigaas. haddaan su'aal ku celiyo walaashayda Maryamo oo sheegtay in ay dumarku u badan yihiin in ay soo bandhigaan noloshooda qaaska u ah sababta maxay tahay ee u soo bandhigayaan in ugu badan yihiin dumarka? su'aashaas haddaan isku dayo inaan ka jawaabo dumarka intooda badan dareen ee markaas ay dareensan yihiin ay waxay ku soo gudbinayaan caadifad ama ay ku falcelinayaan caadifad taasoo keenaysa inay gabar kale challenge kula jirto ama ay ninkeeda ay shaki ka qabto inuu qof kale shukansanayo ama qof kale la wado markaas waxaa laga yaabaa inay istiraahdo dadkan kale way ku ogyihiin ninkaaga inuu dhinacaas aaday ama uu la guursado markaas gabar kale uu la guursaday markaas waxay sameynaysaa inay ninkeeda sawirkiisa soo dhigto ay dhahdo zawjkeyga waa jecelahay zawjkeyga saan waaye kaanay ka dhacday maanta waxaanu ii hadiyey waxaa laga yaabaa waxaas dhan khayaali yihiin ay ku durayso ama qof kale ama waxaa laga yaabaa ayadii gabadhan midii hore la qabay inay saas sameyso ama waxa dhici karta mid dambe inay saas sameyso ayadoo ku durayso midii hore marka intaas uu badan yihiin inay soo bandhigaan nolosha guriga. soo gaarnay gunaanadkii barnaamijkeeni waxaanu ku soo afjari doonaa la talin waxaana su'aal weydiin doonaa walaashayda Hani maxaad uga talin lahayd bulshadeena in ay waqtigooda ugu faa'iideystaan? waxaan kula talinayaa bulshada isticmaalaysa baraha bulshada awalan qofka muslimka ah inuu xasuusnaado qiimaha uu waqtiga u leeyahay maxaa yeelay Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dhaartay waqtiga aayaad fara badan ayaan ku soo arooray waana aaya min aayatillah wal asr wal fajr wad duha wal layl aayaad badan oo Allah subhanahu wa ta'ala waqtiga ugu dhaartay wuxuuna ugu dhaaranayaa ahmiyada uu leeyahay marka qofka muslimka ah ahmiyad weyn u leeyahay waqtiga inuu mar walba waqtigiisa uu yahay mid oo qiyaasan ama u xadidan waxa uu ku bixinayo inay noqdaan wax faa'iido u leh adduunkiisa iyo aakhiradiisa ma ahan inaad mar walba ku bixisid sheekooyin maala yacni ah iyo wixii la midaba oo soo gali kara wax walba maala yacni ah sidoo kale qofka muslimka ah waxa laga maarmaan ah inuu yahay qof Allah subhanahu wa ta'ala raali ahaanshiisa ku dadaala mar walba cilmiga aad baranaysid mar walba ku dadaal inuu Allah ku raali gelisid subhanahu wa ta'ala tan kale oo ah inuu qofka noqdo qof hami sare leh mar walbana ku dadaalo si uu xaqiijin lahayd hadafkiisa iyo hamigiisa inuu meel sare ka gaaro. Aisha maxaad ugu baaqi lahayd dhalinteena doonaysa inay caan ka noqdaan baraha bulshada? waxaan ugu baaqi lahaa dhalinta doonaysa ama u isticmaalaysa baraha bulshada inay caan ka dhex noqdaan caannimada sideeda ma ahan wax u wanaagsan qofka mana haboono qofka inuu dalbo ama uu raadiyo maxaa yeelay inaad dalabto caannimo ama aad raadiso waxay ku diidaysaa ikhlaaska salafkeeni wanaagsanaa waxay ahaayeen kuwa ka cararo ceebeeyana caannimada bal waxay dhihi jireen dadka
qof shay walba oo qofka u kaxeenayo inuu caan ka noqdo wuxuu xaq u leeyahay inuu ka joogsado marka ma ahan wax dadkii wanaagsanaan ugu horeeyay ee ka carari jireen in aan ka raadino sidee looga hortagi karaa khasaaraha uu leeyahay baraha bulshada waxaa looga hortagi karaa kow in ummadda loo sameeyo tawciya diiniya wacyigelin diineed waxaa kaloo looga hortagi karaa inay ummadda ku daydaan nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisii waxaa kaloo looga hortagi karaa in khasaaraha uu leeyahay laga leexdo oo loo leexdo dhinaca faa'iidooyinka uu dadka u leeyahay waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeennii waxaan halkaas inoogu soo dhammaaday barnaamijkeeni Kuni Daaciyatan Lilkhayr xalaqadiisii 3aad waxaan mahad uga celinayaa Allah subxaanahu wa ta'aala oo inoo waafajiyay waxaan kaloo u mahad celinayaa asxaabtii igala qayb qaadatay bulshadeennana waxaan u rajaynayaa in ay noqoto kuwa ka faa'iideysto fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullahi